calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid kusoo dhawaada warka habeenimo calansida media waa habeenimo isniin soo galayso qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo oo si ahaan kara ilaa 6 sano sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan doorashada aqalka sare ee Soomaaliya ayaa ugu dambeyn la soo gabagabeeyay kadib bilo ay soo jiitamaysay iyada oo labadii sanatar ee ugu dambeeyay lagu doortay galmudug doorashada ayaa soo bilaabatay 29kii July waxayna socotay 108 maalmood oo ah in ka badan 3 bil iyo bar ayada oo waxa la dooranayay ay ahayd kaliya 54 sanatar dad badan oo kamid ah kuwa falanqeeya siyaasadda ayaa rumaysan in casharka ugu weyn ee doorashada aqalka sare laga bartay ay tahay inay tusmaysay in doorashada golaha shacabka ay qaadan doonto muddo intaasi aad iyo aad ugu badan doorashada aqalka sare kuma lug lahayn qabaa'ilka ma jirin ergooyin la soo xulayo waxay u baahnayd oo kaliya in madaxweyne goboleedka uu shaaciyo liiska musharaxiinta kadibna baarlamaan goboleedka uu doorashada qabto sida aad u ogaato sida ay u fududahay ama waqtiga gaaban ee lagu dhamay karay waxaad eegtaa kaliya muddada u dhaxaysay markii ay madaxda maamul goboleedyada shaaciyeen liiska musharaxiinta iyo marka la qabtay doorashada taasi oo inta badan ahayd 2 ilaa 4 biri hase yeeshee la yaabka dhacay ayaa ahaa in madaxda maamul goboleedyada ay iska haysanayeen bilo ayada oo aysan jirin wax sabab ah oo muuqda marka laga reebo saciidani oo doorashada sida ugu dhaqsaha badan u soo gabagabeeyay dadka siyaasadda falanqeeya ayaa rumaysan in doorashada golaha shacabka ay qaadan karto sanad ilaa sanad iyo bar marka loo eego xawaaraha ay ku socotay doorashada aqalka sare taasi waxay ka dhigan tahay in madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo oo hadda ku jira bishii 9aad ee xukunka tan iyo markii waqtigiisa uu dhamaaday uu kursiga ku sii fadhin karo sanad ilaa sanad iyo bar oo kale oo dheeri ah taasi oo ka dhigan inuu madaxweyne sii ahaan karo 6 sano iyo ka badan kadibna aan dib loo soo dooran oo uusan gaarin ilaa 10 sano sida wararku ay sheegayaan madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo 40% ayuu ku lug lahaa dib u dhaca doorashooyinka maadaama inta badan maamul goboleedyada saaxiibada la ah uu hoos ka shidayay isla markaasina sabab ay u yihiin in ay kuwaasi sii daahiyaan ra'iisul wasaare Rooble oo carcartii doorashada gaabiyay iyo madaxda maamul goboleedyada aan la ogeyn waxa ay doonayaan ayay ka socon laadahay doorashada dalka maalin kasta uu kursiga ku sii fadhiyo madaxweynaha waqti ka dhacay farmaajo oo ah wixii ka dambeeyay heshiiskii 27 May ee Rooble iyo madaxda maamul goboleedyada wax eed ah kuma lahan ayay wararku sheegayaan si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo inta awoodiisa ah doorashada waa uu sii jiidjiidayaa ama lugaha ayuu kaga fadhiisanayaa si uu 6 sano u buuxiyo wakiilka ka ahay waxaan ku leeyahay kusoo dhawo degmada madaxweyne sidoo kale adiga kusoo dhawo maamulka iyo xukumaysid xaqiiqatan maanta waa sharaf weyn inoo tahay inaan ugu soo booqato deegaankeena sidoo horumar badan sameeyey waxaan xasuusanaa safarka kooda halkaan ku imaanayna muddo 4 saacadood ayuu qaatay inaan inta ku imaan maantana waa aragnaa intuu qaatay bina waa kasii fiicnaan doontaa waxaan rabnaa dadka deegaanka inaan kula dardaarmo inay u istaagaan dhabarka u adkaystaan wadadan sidii u dhaafa cad una gaari lahayd joogi aan rabnaa joogarta kasoo hadayna aan kusoo wada maxamed ashma soo doonano waxayna keeni kartaa mataqaanaa durbaadkiina madaxweyne ra-iisul wasaare dhammaan inta halkaan joogta aan u sheegaa wadadan dhankan waxaan jeclaalahay deegaanada bulshadooda in horumarinta looga soo jeestay maxaa yeele waxaa jooga dad u dhisan nabadda iyo inay ka shaqaystaan horumarkaas socda ay gacan ka qaataan waa ogtiin wadada intay hadda socoto iyo khasaaraha intuu yahay waxaa loo sheegay hal qof oo dhibashada keliya ilaahay ha naxariisto waa wadooyinka halkii maraya waa lumay marka dhulkan dad nabadeeda digani horumarka dhankan aada loogu soo baxay inta hadda waqtiga ay ka hartay oo loo joogto intaa naga soo gaari kadib naga soo gaar annagana waxaan diyaar u nahay inaan xifdino oo aan ka wada shaqeyno amniga xitaa haddii annaga qarashkeeda aan bixinayno haddaan rabno deegaan ahaan isu kaasho karno marka aada iyo aad waa umahadsan tihiin waxaa kaloo maanta xalga nooga dhigi doontaan iskuulka beeraha maanta waa maalin weyn hirshabeel maalin weyn ugu tahay madaxweyne buntland oo maalinta la doortay 11 bisha November waxaan leeyahay bari madaxweyne
وموجودة وقت هذه الموضوع شرفت على هذا الفصول كل سويتنا أنت سنين من موجودة تعليمها نور قامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo amar xoogan soo saaray kadib doorashadii ku soo idlaatay magaalada dhuusamareeb isla markaasina amar siiyey maamul goboleedyada dalka ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu bogaadiyey dhamaystirka golaha aqalka sare ee la soo gabagabeeyey qoraal uu soo saaray injineer maxamed xuseen rooble ayaa waxaa lagu yidhi waa guul weyn in ay soo idlaato doorashadii golaha sare ee aqalka baarlamaanka federaalk soomaaliya waan bogaadinayaa senataradii la doortay madaxweynaha iyo baarlamaanka galmudug iyo guud ahaan dowlad goboleedyada dalka aad baan u bogaadinaya ayuu yidhi waxaa sugnaaba waa in dowlad goboleedyada oo dhammi sida ugu dhaqsaha badan u bilaabi doonaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka ayuu yidhi ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble golaha aqalka sare oo ka kooban 54 xubnood ayaa dhowaan dooran doona guddoonka cusub iyadoo musharaxiin dhowr ahi ay u taagan yihiin xilka guddoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen ninka noqon doona guddoomiyaha aqalka sare ayaana la ogeyn hase ahaatee haddii uu noqdo nin ka socda dhanka mucaaradka waxaa hubaal ahay inuu daaqada ka bixi doono madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo laakiin haddii uu noqdo nin ka socda dhanka farmaajo hubaal in xildhibaanada aqalka sare dhammaantood ay u codayn doonaan madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo si kastaba ha ahaatee rooble ayaa amar xoogan oo degdeg ah siiyey xubnaha maamul goboleedyada dalka in ay si degdeg ah u sameeyaan doorashooyinka golaha shacabka federaalk soomaaliya in ay boobsiyaan dhinaca kale waalidiin 4 wiil oo badda lagu waayey 6 bilood ka hor oo soo hadlay waxaa xeebta liido warbaahinta kula hadlay waalidiin 4 wiil oo 6 bilood ka hor lagu waayey xeebta liido ee magaalada muqdisho iyagoo shaaciyey inay heleen akhbaar ah inay carruurtoodii nooshahay oo dal kale lagu haysto waalidiintan waxay sheegeen in 6 bilood la soo dhaafay ay subax kasta u jarmaadi jireen xeebta liido si ay u baadi goobaan raqda wiilashoodii bal in baddu soo tuftay balse maanta markii ay soo yeertay akhbaarta noloshooda farxadda ayay la ilmeeyeen dhalinyaradaasi oo markii la waayey waxay wateen doon kalluumaysi ah oo ka shiraacatay xeebta liido si dhowr meel ay u soo jillaabaystaan balse hadda waxay ka soo hadleen dalka Sri Lanka kadib muddo 6 bilood ahi oo nolol iyo geeri lagu waysanaa doonta ayaa ka ciladowday taasi ayaana keentay in muddo dheer kadib ay u gacan galaan ciidamada badda Sri Lanka waxayna waalidiintu ka codsadeen dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed in lagu garab siiyo sidii wiilashoodii ay ugu soo celin lahaayeen dalka maadaama loo sheegay in lagu waayey wax dambi ah waxaana loo sheegay in safiirka Soomaaliya ee Sri Lanka uu dowladda weydiiyey sababta loo haysto wiilasha balse dowladdu ay u sheegtay in markii ay baareen lagu waayey wax dambi ah hadda ma awoodno inaan ku soo celino dalka dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ha nagala qayb qaataan sidii wiilashaasi dalka loogu soo celin lahaa ayuu yiri cali aadan oo ka mid ah waalidiinta sidoo kalena ah milkiilaha doontii ay wateen 4 wiil ee halkaasi lagu waayey waalidiintu waxay sheegeen in dhalinyaradaasi ay ka halawday doontii ay wateen isla markaasina ay qabteen ciidamada badda ee dalka Sri Lanka kadib muddo 4 bilood ahi oo ay doon halaysan ay la saarnaayeen badweynta dhalinyarada hadda wax dhibaato ah oo soo gaaray nooma sheegin 4 bilood markii ay badda sabaynayeen waxaa helay ciidamada badda ee dalkaasi Sri Lanka bil kale oo badda lagu dhaxeeyay kadib waxaa lagu xiray gudaha dalkaasi wax dambi ahna waa lagu waayey hadda waxaa codsanaynaa in gacan nagula siiyo inaan dalka ku soo celino wiilasheena ayay dhahday hooyo ka mid ahi oo wiilasheeda halkaasi ku maqan yihiin runtii waan ku faraxsanahay maanta inaan soo gaarno degmada Balcad waxaan rabaa guddoomiyihii degmada Balcad inaan hadalkiisii ku halqabsado dhowr erayo oo meeshan ka xusane aan tixraaco guddoomiyuhu wuxuu dalbaday 2 arrimood oo midna ay tahay dhanka horumarka midna ay tahay dhanka amniga in wax laga qabto dhanka horumarka waxaad saaba markhaati ka ahaa horumarka laga sameeyey degmada Balcad maanta waxaan goobjoog u nahay furitaankii iskuulkii beeraha waxaa kaloo xusay horumarka ballaaran ee laga sameeyey waddada wuxuu sheegay in 4 saacadood loo socon jiray maantana waxaan ku nimid 20 daqiiqo waxaan uga mahad celinaa dowladda federaalka Soomaaliya oo runtii gacan ka geysatay in la suurtageliyo mashruucan aadka u ballaaran ee waddada ka soo baxda lagu dhameystiray waddadii Xamar Jowhar haddana lagu dhisay waxaan dhihi lahaa Xamar Afgooye haddana lagu dhisay Xamar Jowhar waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo hay'adaha amniga oo runtii gacan ballaaran ka geystay inay suurto gasho dhismaha waddadaas
oo runtii naf badan dad badan ay nooga dhinteen dad badan ay nooga dhaawacmeen guud ahaan mashruucu intuu socday guud ahaan ciidamada amnigu waa ka wada qayb qaateen laakiin waxaan si gaar ugu mahad celinayaa ciidanka booliska Soomaaliyeed taliye xijaar iyo taliye farxaano iyo taliye ku-xigeenkaba oo runtii si gaar ah ayay uga sii xisaaray arrintaas sidoo kale waxaan u mahad celinayaa bulshada reer Balcad oo wadadu markii ay soo gaartay degmada Balcad si gaar ah isu xilqaamay hadday noqon lahayd amni iyo hadday noqon lahayd fududeyn waxaana loo sheegay meelaha qaar wadadu inay wadada hore ka ballaaran tahay markay ku yimaadaan guryo dad lahaa dadkii inay ogolaadeen guryahoodii inay duunsadaan oo ay wadada gadaal uga durgaan waa ilbaxnimo ay muujiyeen dadweynaha reer Balcad waana idinku amaanaya waana idinku bogaadinaya horumarka waxa ugu horeeya ummaddu ku fikirto waxa loo yaqaan infrastructure haddii iskuulkii beeraha maanta idiin dhisan yahay xariga laga jaraayo wadada idiin dhisan tahay isbitaalna wuu imaanaa horumarka intiisa kalena waa imaanayaan insha Allah haddii Allah wadada ka raali noqdo tan horumarka intaanan ka bixin waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo idinkuna bogaadiyo inaad ku fara adeegtaan mashaariicda laydiin keeno oo ay ugu horeyso tan wadada waxaan ogahay waxyaabo yar oo caqabada inay ka jiraan waxaa laydinka rabaa inaad qaybta idinkaga aadan si mugla uga qaadataan in la xalilo caqabadaha ka jira si ay wadada hore ugu sii socoto ay u gaarto Jowhar dabcan haddii aad dareemaysaan inaad maanta ku xiran tihiin xamar oo caasimadda dalka ah waxaad qabtaan baahi weyn oo ah inaad ku xirantaan caasimadda dowlad goboleedka ee Jowhar mashruucana qayb uu ka yahay marka waxaan rajeynayaa sidaas oo kale ugu fardeegi doontaan marka la yimaado amniga ra-iisul wasaaruhu wuxuu booqdaa inta badan caasimadaha dowlad goboleedyada maanta wuxuu soo booqday degmo waxaan filayaa booqashooyinkiisii uu ku tegayay caasimadaha dowlad goboleedyada inayan la wada socon hal mar taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyihii ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo taliyihii nabad sugidda qaranka yacni ma ayaan dhicin inta badan in intaas ay wada raacdo ra-iisul wasaaraha wuxuu muujiyey ra-iisul wasaaruhu miisaanka ay leedahay degmada Balcad iyo miisaanka ay leeyihiin bulshada reer Balcad waad dareemaysaan wafdiga intaas leeg ayuu soo hogaamiyey keena maanta degmada Balcad waxaan filayaa in macno badan ku jiro in ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii dowlad goboleedka iyo wafdiga intaa la eg imaanshahooda in macno kale ka dambeeyaan rajeynaa waxaan rajeynaa cabashada ama culayska ku aadan kooxda nabadiidka ah ee aad ka dhawaajiseen in laydinka fududeyn doono laakiin waxaan jeclaan lahaa inaad ka maqashaan afka ra-iisul wasaaraha haddii alla idin dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka